walaalkay Cusmaan iyo aniga maanta waxna dhaxyaalo ma jirto waa kala tagnay wuu ifuray ma fahantay maanta waxna dhaxyaalo ma jirto inaad dhageysataan in badan inaad daawateen arintan iyo Cusmaan hadeertaan waxaan usoo fadhiistay aan xiligan muuqaalka usoo dhigayaa waxa waaye dad badan horta waxay dhaheen Fartuun afkaaga wax walba cadeen karo afkaaga wax walba karamna aniga maanta horta naag weynanahay naag maanta 4 ciyaal haasataanahay wiilka Cusmaan aan u dhalaa afar ku ma fahanteen inaan markay hadala qaldan iyo waxyaalo qaldan inaan ku hadlo marabi naag weynahay alxamdulillah dadna weynaanta way diidaan ma fahanteen dad gadaal isku dhigaane dib isku yareeyaan marka ummadda Soomaaliyeed ummadda Nabi Maxamed ee dhamaan idaawanayso oo dhamaan aniga igu xiran waxaan leeyahay horta wax walbo dhacay apologize ka bixinaya aniga intaan meel soo fadhiistay mar labaadaan igu celinaya wax khaldan kuma hadlin wax gurigayga qusayana maanta in social media la keeno ma jecleen Soomaalida waxay dhaheen nin intuu ku qabo ayuu ninku yahay nin hadduu mar ku furo nin ma noqdo mahmah Soomaali waa mahmah Soomaalina been ma noqoto been waa marmara been waa la iska dhaha ila waxyaalo qaar ani ahaan Fartuun ahaantayga wallahi xiliga muuqaalka aan duway waa 12 subaxnimo meeshaan ku saxuurtay aan salaadeeda ku tukadaan fadhiya aan TV fiirsanaaye ma fahanteen marka arintan inaan aniga qarqariyo oo familkeygana maanta oo aniga hooyaday i dhashay walaalahayga aabay horta uu dhintay Allah u naxariisto walaalahayga dadkayga oo maanta aniga i dhalan horta adduunka maanta qof dad la'aan mise qof aan dad lahayn ma joogo markii loo dhahayo qof aad guursatay daraadiisa lagu gooyay daraadiisa saan lagu dhahay taas run waaye horta walaalkay Cusmaan aan wiilkay aabihiis waaye meel ku kala marahano meelne lagu malago meel dhahay moga Soomaaliga tabay qaldoomoya ma fahanteen marka waxaan leeyahay walaalkay Cusmaan iyo aniga maanta waxna dhaxyaalo ma jirto waa kala tagnay wuu ifuray ma fahantay maanta waxna dhaxyaalo ma jirto waa kala tagnay wuu ifuray mar labaadaan igu soo celinaa mar kale marabi in social media arintaas lagu wadwado mise in la sii bubuuniyo marabi ma fahanteen waxaan hadalkaas u dhahooyaa oo cadeen oo digniin ee saacadan aan u duubooyaa maanta aniga shalay markaan dhahay saaxiibkay wuu cabsanay saas waaye aniga horta sideena banaan jareeraan nahnay jareer haddaan nahnay Soomaalida kale waxay nagu tilmaamaan aqli lixsa macnihiisa ani faasiyo waxa marka la rabo inaad qarisid social media keentid adib hadina adhayd Allah maxaa waxaas u sameeyay aqli lixsa waa nool laha waa iska ogtiin marka ani sidiisa oo kale ma noqon inaan social media soo fadhiistay anigoo naag oo maanta lii furay ana caatimo inaan kulaado inaan korka igubta la rabay waxaas ma sameeynin waxaan dhahay wuu cabsanaay because labadeena doqon isla ma noqoneeno labadeena dabaal isla ma noqon intaas wax leen dhowdhowaaye wax leen qarinaaye arintan si tartiib guri haloo dhameeyo xal haloo helo aniga si horta kooda hore inaan social media keeno wallahi billahi isinka ilaahan ku dhaartay ilmahayga horta kuma dhaaranaayo ma fahanteen ani naftadaydan ku dhaartay ma jecleen inaan hadda fiidiyowgan aniga aan kula hadlaayo Fartuun aan duubo ma fahanteen marka walaalkay Cusmaan iyo aniga maanta nin inaag isqabno horta manahano waa kala tagnay sin ilaahay mid khayr qabto oo ani ii dhaanto baare ilaahay ha u sahlo aniga naag hadda maanta guur u soo jeedo mis haday cudaday hataa ii dhamaatay nin guursan lahayd waa ahaan lahaa ilaa hadda nin uma baahni afarta aan dhalay tawaran ku koriyo iyo waxay cunaan iyo waxay cabaan la ilaahay idinkiis inaan u helo aan siiyo garabkayga Allah ha galo ma fahanteen marka aniga Cusmaan waa kala tagnay waxna dhaxyaalo ma laha nin inaag isqabo isku manahna ma fahanteen arinta arabteen in badan social media in loo sheego la keeno ana maanta afkayga ku keenay ana maanta afkayga ku cadeenayo anigoo Fartuun Cumar Cali aan sheegaya arintaas ma fahanteen marka waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed YouTuber-yaha Soomaaliyeed oo hadalkayga wadwadaan waxaan leeyahay hadalkan dambe yaa la wadwaday fiidiyowga maanta qaata hataa hadaa rabteen ilaa fiidiyow dambe hadal dambe in la wadwado in barnaamijyad qaar la wadwado ma jeclaan dooni Soomaali Maxamed
shalay aniga waxaan ahay gabadhiina agtiina sharafaan ka lahay agtiina xishmadaan ka lahay waxaa ahaa gabadha u gargaari jirteen gabar maanta waxay u baahan tahay aasiin jirteena ahay maanta ani Soomaali Maxamedaan dadku ahay aniga maanta ummadda Soomaaliyeed madax Soomaali sheegata ani maanta walaalahayga ummadda maanta garabkayga taagan ummadii shalay garabkayga taagneed aniga maanta garabkayga taagan ciyaalkaygana waa korsanaa waxna waa siisanaa hooyadeena shalaysaa wax u siisanaa aniga shalay aniga shaqaysanaaye aniga wax walba xabadka u garaacanaaye aniga meel walba bariiskayga ka dhacsanaaye aniga nina biilaayo guri u fadhiinay ma dhahay horta taasna xaqiiqay ahayd marka waxaan leeyahay Soomaali Maxamed hadalaha qaar qaladka aad wadwadiin inaad iga daysaan Cusmaan video waxaa jirta horaan aan u duubnay YouTube-keena uu ku jiray mar horaan sheegay si kay soo qaatay TikTok la geenayo Facebook Fartuun Cusmaan way isku noqsadeen horta maanta in social media adigoo ku qabo oo sharaftaada meesha ku bahdilay ku caayay ku keenay macal familkiisa ku caanayo macal walaalihiisa ku caanayo horta nin ma noqdo nin wuxuu noqdaa markuu nin kalsooni isku qabo oo naagtiisa wuxuu u qabo oo gurigiisa ugu sheegan karo oo gurigiisa qarsooni wixiisa ugu yahay nin wixiisa balaanka keenay naag wax ma dhaamo inaan si aflagaadeeyo ma jecli inaan si doqonnimo aan ku hadlo ma jecli inaan waxyaalaha qaldan aan sheego ma jecli ani walaalkayga Cusmaan shalay waxaan ahayn dad isqabo dad nolol wadaagayo dad gurigan maanta quruxda badan deganaa ahayn aniga maanta waa kala tagnay gurigii hataa wallahi igu ogaay maanta igu dambaysa video aniga aan ku duubooyo gurigaas hataa waan ka guur rabaa ma fahanteen marka waxaan leeyahay usan ilaahay alafkiisa meel khayr qabta Allah ka siiyo anigana naagti ilmaheeda korsato dhabarkeeda u dhigata Allah iga diga shalay ilmaheyga ana kursanaaye ana ummadda islaamka u dhaxgalaayay aniga gacanta u hoorsanaaye ana ilmaheyga u tuugsanaaye ma fahanteen shalay saa ilmaheyga aniga dhabarkeega ugu tumanay aan ummadeeda islaamka aan ku dhex noolaay aan shalay ummadeeda aan ka dhex qaraabana aan maantana ugu dhex qaraabana maantana ilmaheyga ana dhabarka u tumana maanta madaha ay ilmahaaga baahanayaan ilmahaaga ishooda qashin ku dhaceyso madaha shalay nin wax iguma siineenin nin iguma biileenin sida shalay ilmaheyga aniga aan u shaqaysan jiray sidaan shalay aniga fartuunteeda aan u ahay sidaan shalay aniga habigeyga aan waa sidaan shalay aniga qoslinaayay sidaan shalay aniga farxinaayay aan maalin walbana inaan niga farxiyo inaan farxadiina ka taliyo inaan qosolkiina ka taliyo inaan wanaagiina ka taliyo inaan walaaltinimadiina aan ka taliyo maantana aniga Fartuun Cumar Cali aan taasaan ogahay ma fahanteen aniga ma jecli naag weyn ahay naag caruur dhashaan ahay intaan ka bacdi ma jecli social media bari caruurtayda daawanayo in aflagaado iyo wax qaldan iyo wax xun liigeliyo ma jecli ninkaas ha aatimo siduu rabo ha noqdo usaa TikTok-giisa iskale aniga xoog ku mali telefonkiisa usaa iskale usii ragnimadiisa usii doqonnimadiisa wuxuu rabo ha sheego ilaa aniga sharaftaydu waxaas way ka weyn tahay waana ka doorsana qof dad ahayn shalay ana maanta dad ka dhigay maanta ana wax walba dhabarka u tumanaaye ummadda Soomaaliyeed 114 waxa iga raali noqdaan maanta laba qof oo isqabtay in arintooda social media la keenay maanta anigoo naag weyn oo ilaaha weeno waaxida ilmahaas haasto in la dhaho bari hooyadiina live lagu dhaxfur Cusmaan kaas wuxuu u noqonaa tusaale kaasna waxaa ka jari doona wiilkii uu sadalay ani wiilkayga maanta aniga ma haysti waxaan leeyahay wiilkiisa Cusmaan bari markuu weynaado waxaas dhan wiilkiisa la tashanaayo wiilkiisa aniga xaqayga ii soo dhicinayo meel iga saarayo aniga ninkaas jabka yar maanta inaan ragficiisa aan u keeno waa sameyn karaa ina aniga maanta walaalahayga u keena jid islaan la marsi waa sameyn karaa qof la'aan ma jirto qof dad la'aan naag shiidlaan ahay garmagalaay ma fahanteen naag shiidlaan ahay madax dheer wada qabiil weyn ka dhalatay ma fahanteen ma jecli reer goleedka sixiroolayda la sheegayane hooyada in la aflagaadeeyo ma jecli ani naag Kismaayo ku dhalataan ahay hooyada reer Kismaayo ma fahanteen maanta aniga ma jecli in reer goleedka in la caayo waa dadkayga waa dhiigayga waa dhacaankayga dadkii liiga beero waa ma fahanteen markay walaalkay inta ani u iqabay aniga xaaskiisa ahay maalintuu ani ifuro intuu live soo fadhiisto wax walba ka dhahay uu hooyaday oo maanta hooyadiis camal ahayd uu caayay walaalkiisa ani walaalkayga ani ila dhashto walaalkiis camal ahayd uu caayay ma fahanteen
ani fideogaas ani cusmaan wax kama dhahay beri wiilkiisa daawan doono markuu weynaad adduunka haddii la nool yahay aan nafta nagu siman tahay haddaan dhinta ani waa dhinta hooyo macaan wiilkayga nuurow haddaan noolahay aabbahaaga beri fideogan youtube ku jiraa horta ma baxaayo aabbahaaga beri adaa wax walba kala xisaabtami doona xaqaygana adaa ii gudi doonto ma fahante hooyo macaan aniga horta kuma haysti mana ku kursanooy cidiinaan ku haysato beri markaa weynaatid hooyaday intay joogtaa intay ku nooshahay adaa soo dhehaysa adaa isoo raadsanaysid haddaan soomaaliya joogo waa sii jooga haddaan soomaaliya ka tagane meel alaala meelaan joogo wiilkayga beri usaa isoo raadsanayo hadalkan inaan sii badiya ma jecli indhahayga inaan kusoo fadhiisano socodkayga hataa waa bedel mooya soomaali maxamed waxaan leeyahay I love you waani wada jeclahay dhammaantiin meel walba oo ay joogtaan waxaan leeyahay ramadaan mubaarak ramadaan iidoo tahay oo bishii qeyrneed ah in maanta anaga social media nalaga dhex wadwado maalinba war la sheego ma jecli macsalaama hadalkana igu dambeeyo hadal dambana ma soo hadlaayi hadal dambana youtube ma soo dhigaayo 114 igaraale noqdo qur-aanka waanta wax ka weyn ma jirto